السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waa walaashin Rabaab Sabriye. maanta maxaa idiin wadaa? waxaan idiin wadaa muufo iyo maraq. qoraalka ingiriiska waan iska dhaafayaa insha Allah because dad badan baa dhahaya cunto Soomaali baa sameynaysa, dad Soomaali baa ku daawanaya. Soomaali baa markan iigu sheegaya, codkayga iigu korduubaya insha Allah. hadda muufadii waxaad u baahan tahay, muufadii intaan waad u baahan tahay kaamirada ka dhex arkaysid. waxa weeyaan biyo qandaca, biyahaas aad arkaysiin qandaca weeya saaid qandac u ah, iyo soortaas. soorta waa soorta cadcad ee shiidan. plain flour kaas aad u baahan tahay, sokor ama ta brownka ama ta cad, hal xabo bayd ah, ukun, hal xabo ah maxaa la odhan jiray faxiso, hal xabana iga keentay faxiso iyo cusbo. marka weelkaas aan ku samaysanay yani markaas familygayga ma badna, dad badan uma sameynaya yani 2 koob oo koobkaas aan ku cabiranayaa, 2 koob oo bura xagaas ku shubanayaa. qiyaasta adu markasta waxay ku xiran tahay inta qof aad u sameynaysid, gacantaadana inay barato way fiican tahay qiyaasta. badan ani walahi waxna ma xasuusto mana qorqoro, marka meesha soo istaago un baan isku dhex dardaraa. hadda koobkaas oo arkaysiin 2 koob adood ugu badato 2 koob bar baa nagu filan. hadda xagan waxaan ku shubanayaa soorti oo 1 koob ah, marka waa 2 koob iyo badh oo ah burkii. koobkaas isla koobkii waan ku cabiranayaa oo ah soortaas aad arkaysiin ku shubtay. haddana waxaan ku shubanayaa qaadada yar oo yeast ah, faxiso 2 malgacada yaryar, iyo malgacadii naftirkeeda haafkeeda oo milix ah, iyo 5 qaado oo maxaa la odhan jiray 5 qaado sokor ah. wax yar inay ka dhanta sokorta way iska fiican tahay. iyo waxaad ku daraysaa 1 xabo oo ukun ah. intaasaad isku qasanaysaa insha Allah. biyahaaga qandaca ku ahaaba ku darsanaysaa, gacantaad la gelaysaa. markaa gacanta la gartid waxaad u qasaa adigu sidii aad u qasi lahayd laxooxda ama canjeerada. si fiican baad u xashisaa, waqti fiican si waxna ku maxaa la dhihi jiraa ku degdegin. marka saas ku qasid waad garaacaysaa. marka waxaad u garaacaysaa sidii laxooxda u garaacaysaa. garaaca waa codkiisa waan ka xiray si laab buu ahaa. marka saas u garaacday si fiican bay isku ka dhexgalaysaa, si fiicanna way kugu faxaysaa. markaas like the more ay garaacdid the more aad arkaysid buu isbedelayaa texture-ka. muuseeji lacsaabad isleedahay adoo biyo ku darin. haddaa u baahatid oo isdhahdid way yara adagta sibay u qallafsan tahayna biyo yar waad ku dhibcan kartaa ilaa ay gacantaada habi ku noqoto. wataanu hadda weli waan wadaa, sidaas si fiican baan isku dhexgelinayaa. garaac kala ii haray, weliba inta kaamirada nagu tusay ka badan baan si fiican iskugu dhexgelinayay, marban inuu videoga dheeraado. marka saas kugu qasid wataas waa arkaysiin. waad daboolanaysaa. hadda bac baad ku daboolan kartaa, foil baad ku daboolan kartaa, fur baad kor saari kartaa haddaad doontid. hadba saa rabtid 1 saac to 1 saac iyo bar. marka aduu 1 saac kuu taalo baad ku soo noqonaysaa. waad yara dejinaysaa yani waad isku dhex walaaqaysaa. kadib baa haddana samaysanaysaa. intaad 10 daqiiqo kale dabooshid baa haddana samaysanaysaa. marka haddana waan dhigtay. hadda maraqeeni baan samaysananaa insha Allah. xaggan waxaan ku haysanaa hilibkii, tamaandhadii, baradhadii, courgette iyo maxaa la odhan jiray basal. inta si fiican iskaga dhaq. maxaa la odhan jiray saliid baad dabka saaranaysaa. hadda saliid adoo in yaro mana badno mana yara. Soomaali baana qiyaasta si fiican iskuguma fiicnin inaan wax qiyaasno. basashaada saas dheerarkaas baa u jarjaranaysaa. hadda basashii saliidii way kartay, basashii baad ku shubanaysaa. basashii markaan ku shubatid waxaad sugaysaa ilaa ay brown kaaga noqoto, si fiican iskugu dhex gasho. markaas hadda arkaysiin kaamirada
marka si fiican saas ugu dhex gasho brown ku noqoto hilibkaad korka uga darsanaysaa markaa hadaad doonto waad dabooli kartaa si casaan caadi like badan baad ka dhigan kartaa haddii kalena waad ku darsan kartaa anuu hadda waan iskaga darsanayaa hilibkayga hilibka oo kaa si fiican baan u dhaqay waxaan ku dhacay qal iyo liin baan ku dhacay ku meedhay iyo maxaa la odhan jiray biyo qandaca taas waa uu kalarkaas u yahay markaad isku daboolaysaa intaas markaad isku daboosho wakaa biyo iyo waxna ma taabsiin isagaa biyo yar dhalay si fiican buu isku dhex galay hadda waxaad ku darsanaysaa spiceskaagii waxaan ku darsaday huruud yar iyo spiceska bariiska lagu daro because ma doonaya inuu iga casaado waxaan doonayaa kalar yellow inuu noqdo tamaandhada wataa 4 xabo tamaandho may ahayn cas way yara yacni may bislaanin weli cayriin bay yara ahayd just waxaan ka rabaa dhadhan inay ii samayso waan isku daboolay wakaa tamaandhadii biyo yar baan ku dhibciyey iga raali noqda mana i tusin kuwa marka biyihii yaraa tamaandhadii basashii iyo hilibkii iyo spiceskeenii isku dhex qasnay si fiican iskugu dhex geli biyo yar haddana ku darso biyaha way kuu bislaynayaan cuntada wax kale kaama dhimayaan baradhadii si yara waaweyn u jarjaranaan korka uga darnay marka hadda waxaan fiirinaynaa muufadii wataa 1 saac bay taalay waa aragtiin waxay u egtaa inay soft tahay laakiin aanu softigaan jeclahay intaan inka adag ma jecli hadhow ma la si fiican ma la cuni karo ciyaalkana ma cuni karaan marka wakaa way soo faxday maasha Allah tabaarakallah saas un hoos ugu dhigdhig bacdaadi ku xiro 10 daqiiqo kale iska dhigo insha Allah ana 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo gudaheed like baan ku dhigtay maraqeeni baa marka hadda u noqonaynaa insha Allah waxaan ku daray kabsar caleen iyo frozen ahayd iyo toon iyo garlic and ginger basically maraqi wakaa waxaan ku daray carrot iyo frozen vegetables kaas aad arkaysiin courgette intaas wax marka waxaan u deenayaa dabka maaragtay medium baan uga dhigayaa ayada iskeeda u karta dib dambe uma walaaqayo muufadayna iska soo samaysanana muufadi waa 15 daqiiqo kadib samaysanana insha Allah waa ready anu qaadadaasaan ku qaadaa haddaad doonto gacantaadan waa ku qaadi kartaa qaadada markaan ku qaadana biyahan gacanta gashtaa gacantaan ku fidsadaa iyo bahalkaas aan laxooxda ku samaystaan iskaga sameeyaa birtaa haysasid baa markasta ku samaysan kartaa in yaroo qiyaasa sizekeeda kulle wuu iska yaryar yahay bahasha ma waaweyna biyahaagi faraha soo gasho biyaha marka faraha soo gashid yacni burka kaagama dhegdhegaya gacmaha si fiicanna waad u samaysan kartaa sidaas aad arkaysiin baa u fidinaysiin markaa fidisid waad daboolaysaa wakaa waa sizekaas zaaidna ma weyna zaaidna ma yara marka hadhowna waad gedinaysaa markaad dabooshid ee dhinacan saan kalarkan noqoto dhinaci kalead u gedinaysaa dabkana isku day inaad medium ka dhigtid zaaid ha ugu dheereen hadday yacni kaa yara cadaatana of course dabka waad ku dheereen kartaa si fiican rabtid inaad u casaysatid marka wakaa muufadayni I hope inaad videogan ka faa'iideen wax because hadalkan waan boobsiinayay because videogan rabaa inaan la socday hadalkayga maraqeynana wakaa waa ready haddaa mar aragtid saliid iyo dhacaankii waxa inay kala milmaan markasta cuntadaada waa ready intaasa lagu kartaa marka maraq iyo muufo qofkii yaqaana baa yaqaana muufadan inuu dabkee noo saaranta isku waqti baan labadaba sameynayay wataasa hadda waan gedinayaa markaa gedisid malgacad unbaa saarsaaraysaa sida isku kalarka ugu noqoto maasha Allah tabaarakallah kale happy baan ku baryahan muufa maba sameynba laakiin maalin ba iska keen qabataa inaan muufa iyo maraq cunno marka bahalka saas ugu sameynayo because ma raba inay dhinacna ka cadaato dhinacna ka casaas ee hadda waxay noqonaysaa yani wax tush ah wabillahi tawfiiq thank you for watching subscribe ka like iyo comment kana waa dhinaciina assalamu alaykum warahmatullah